رمضان 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 يا حبيب رمضان رمضان ليتك دوما قريب ugu furaya inoo socon doona haddii ilaahay ka dhigo cidda maanta badisaanaya isdhigan oo soo dhan waxa weeye waad guulaysateen waxa weeyaan iska nasta cidda laga badiyanayay niyad jabin ama maaragtay laga badiyanayay inaan niyad jabin waa ka daba tag bay leeyihiin iyaguna iyo inay maaragtay ay chance-ka labaad ka faa'iidaystaan marka dhallinyaradeenna iyo waxgalkeennu in ay bartaan wadaniyadda dalka iyo dastuurka iyo shuruucda inay bartaanna aad bay muhiim ugu tahay qofku inuu barto dastuurka waxay la mid tahay inuu barto xuquuqda uu nololeed uu dalka ku leeyahay iyo la mid tahay arrintaas iyo arrinsan iyo idin la noqon qofku waa inuu bartaa dastuurka wuxuu fahmayaa waxa uu xaq u leeyahay ee dalkan uu joogo xaq ugu leeyahay barnaamijkan ujeedada ugu weyn ee kalena waxa weeyaan dadku inay ku bartaan dawladnimada shuruucda dalka sidoo kalena ay ku bartaan maxay mas'uuliyaadka ka saaran qarankooda ee waajib tahay inay gutaan muhiimaduna ama ka dambaysaana waxa weeyaan qofka muwaadinkii inuu aamini karo inuu ilaaliyay qarankiisu رمضان مبارك كانوا بلابن دونا شنت السؤالات iyo shanta su'aalood hore 10 su'aalood ee qolaba shanta su'aalood leedahay waa multiple choice marka hadii shanta ay qoladani garato qoladana shanta garato waxa iman doona su'aalo dheer iyo ku kala bixi doonaan oo direct question ah oo lagu kala saari doono labada group tan su'aalo way noo bilaabmi doonaan inoo sida su'aasha koobaad waxa iska leh garab bulsho waxaana oranaysaa ansixinta barnaamijyada xukuumadda waxa awood u leh ba madaxweynaha ta golaha wakiilada ja golaha guurtida ha dhammaan time ku idin bilaabay su'aasha jawaabteeda haddaan isku dayo waxay noqonaysaa ha oo dhammaana su'aasha jawaabteedu sidaan wada arkano ta way sax ku ahayd golaha wakiilada su'aashaas may garan waxaan u gudbi doonaa su'aasha labaad waxa yeelan doona ishfaaq ay su'aasha labaad yeelan doona su'aasha labaad sida loo wada socota waxay oranaysaa xaaladda degdega ah marka dalka ama qayb ka mid ah lagu soo rogayo waxa golaha xukuumaddu weydiisanaya ba madaxweynaha ta golaha wakiilada ja golaha guurtida ha oo ta iyo ja time ku idin bilaabay su'aasha jawaabteeda haddii aan isku dayo waxay la noqonaysaa ha waxay noqonaysaa buu yiri ha oo ta iyo ja waan wada eegi doonaa jawaabta su'aashaas way garteen waxaan u gudbi doonaa su'aasha saddexaad oo yeelan doonaan garab bulsho su'aasha saddexaad waxay oranaysaa golaha awoodda u leh wax ka beddelka miisaaniyadda qaranka waa ba golaha deegaanka ta golaha guurtida ja golaha wakiilada ha oo dhammaana su'aasha sax ku tahay baad wada eegi doontaan time-kuna waa idin bilaabmay bismillah haddaan su'aasha jawaabteeda isku dayo waa ja oo ah golaha wakiilada waan wada eegi doonaa jawaabtaas saasay sax ku tahay su'aasha xigtaa waxay ku oranaysaa barashada wadaniyadda waxaa laga bilaabaa ba waa dugsiyada ta dalka ja qaranka ha qoyska time-ku idin bilaabay su'aasha jawaabteedu waa ha oo qoyska su'aashaas inuu eegi doonaa ha oo qoyska
su-aasha shanaad baynu gudbi doonaa su-aasha shanaad waxa iskale garab bulsho su-aasha shanaad waxay ka odhanaysaa qofka xorriyadda looga qaaday faldambiyeed lagu eedeeyey awgeed waxa uu xaq u leeyahay in lagu horgeeyo maxkamad ba waa 46 saacadood ta 24 saacadood ja 48 saacadood ha oo 12 saacadood ah time-ku idin bilaabay بسم الله سؤال جوابتي هذا تنسك ده وجهاد وأنا قلنا سيستيدي أفرت ساعات ja 48 saacadood aan wada eegno saasay sax ku tahay waxaan u gudbi doonaa su-aasha xigta waxay odhanaysaa waa su-aasha lixaad qaab dhismeedka qaranku wuxuu ka kooban yahay ba dowladaha hoose ta gobollada iyo degmooyinka dalka ja xeerdejinta fulinta iyo garsoorka ha oo dhammaana oo idin bilaabay time-ku jawaabta su-aasha haddii aan isku dayo sida ugu quruxda badan amba sida ugu saxsan jaabi noqonaysaa waa ja oo xeerdejinta fulinta iyo golaha garsoorka su-aasha jawaabtaasi saasay sax ku tahay waa su-aashii toddobaad waaxda ay mas-uulka ka yihiin madaxweynaha iyo madaxweyne ku-xigeenku jamhuuriyadda somalilan waxaa loo yaqaanaa ba ismaamul ta qaranka ja xukuumadda ha oo dhammaana waqtigan idin bilaabay jawaabta su-aasha haddaan isku dayo waa ja oo ah xukuumadda ja oo xukuumadda aynu wada eegno saasay sax ku tahay waxaan u gudbi doonaa su-aasha xigta waxaa yeelan doonaan ishwaaq waayay su-aasha sideedaad waxay odhanaysaa degmada qoryaale waxay ka tirsan tahay gobolka waa su-aal wadaniyada gobolka ba sanaag ta tugdheer ja saaxil ha oo awdala waa idin bilaabay waqtiga baabay la tahay saafilaya ba oo sanaagaynu eegi doonaa su-aasha jawaabteedu saasay khalad ku tahay waxaanay sax ku tahay ta oo tugdheera su-aasha xigta ayaynu u gudbi doonaa oo ah su-aasha sagaalaad su-aasha sagaalaad waxaa yeelan doona garab bulsho su-aashu waxay ku odhanaysaa maxkamadaha jamhuuriyadda somalilan waxay ka kooban yihiin sida ku cad dastuurka saddex maxkamadood ta 4 maxkamadood ja 5 maxkamadood ha oo 6 maxkamadooda time-kuna waa idin bilaabay بسم الله الرحمن الرحيم دان جوابت سؤالها اسكو دايو waxay noqonaysaa ha oo 6 ha oo 6 maxkamadooda waan wada eegi doonaa su-aasha jawaabteeda waa ja oo 5 maxkamadooda saasaana qalad ku tahay waa su-aashii u dambeysay waxaana yeelan doonaa ishfaaq su-aashu waxay ku odhanaysaa wadani kasta waa muwaadin laakiin ba wadani waa muwaadin ta muwaadin kasta maaha wadani ja waa ba iyo ta ha intaba time-kuna waa idin bilaabay su-aasha jawaabteeda haddaan sida ugu quruxda badan la isku dayo mar in fara badan aan meeris galnay amba aan discussion fara badan galnay inay taa ila tahay waqtiga ta su-aasha jawaabtaasaan wada eegi doonaa saasay sax ku tahay wadani kasta waa muwaadin laakiin muwaadin kasta maaha wadani saasayna sax ku ahayd natiijadan isku geyn doonaa qolada garsoorkaana inoo sheegi doontaa markaa labada guddoomiye waxaanu siin doonaa hal kelmad siday tartanka u arkaan hadday guulaystaan siday u arkaan asalaamu calaykum waraxmatullahi tacaala wabarakaatu kolley dee marka la tartamayo guushu waa barcad iyo bermadow qof kastaana wuxuu kusoo talagalaa inuu badiyo ama in laga badiyo waan hambalyaynayaa tiimka badiyey tiimka laga badiyey laftirkoodu iyagoo dadaalkeeda la yimaadeen iyaga laftirkooda waan hambalyaynayaa marka la baranayo dastuur iyo wadaniyadna in lagu tartamo wax wanaagsan baan u arkaa waa barnaamij qurux badan
oon ku hambaleynayo wasaaradda iyo xarunta laftirkeedaba iyo hawlwadeennada ka shaqeynayaba isla barnaamijkan aad baan ugu mahadcelinayaa Al-Ishfaaq Charity Organization in ay tartankan qayb ay ka noqdaan runtii waxay muujiyeen karti weyn aqoontooda way soo bandhigeen waa isku mid u bay nahay oo muhiimadda ugu weyn aqoonta ay ahayd in koox kasta aqoontooda iyo heerka ay gaarsiisan tahay inta ay ka xifdisan yihiin runtii wixii tartanka lagu gelay ay muujinaysaa marka dhammaantiin hambalya baan leeyahay 8 urur baa ka qayb geli doona tartanka ujeedkeenu ka lahayn waxay ahayd inaynu inagu ahaano dadkii qaadiya dastuurka kol haddaynu ka kala socno qaybihii bulshada degmooyinkii caasimadda inaynu dadka sii gaadhsiino dastuurka iyo wadaniyadu waxay yihiin qoladii guuleysataaba waa qoladeenii aqoon kororsi baad ka faa'iideen marka waxaynu ugu dhawaaqi doonaa natiijada ustaadka haddii la helaado dhammaantiin waad mahadsantihiin labadii urur ee halkan ku tartamay waxay muujiyeen karti iyo aqoon labadaba iyo dhiiranaan iyo kalsooni ayay muujiyeen aad baan idinku mahadnaqaynaa sidii milgaha lahayd ee aad u soo bandhigteen waayo aragnimadiinna iyo aqoontiinna sida aad wada ogtihiin marka la tartamo waa la yar kala dheereeyaa taa macnaheedu ma aha in la kala aqoon badan yahay laakiin cid baa yar dheeraysa laguma se qiimayn karo oo laguma jaangoyn karo aqoontiinna iyo waayo aragnimadiinna halkan laguma qiimayn karo tanise wuxuun bay ahayd uun tartan iyo dhiirigelin markay sidaa tahay waxaan ka horeynayaa ururka garab bulsho oo aad iyo aad u muujiyey dadaal iyo karti ururka garab bulsho wuxuu haystaa 3 dhibcood aad iyo aad bay u mahadsan yihiin iyaga iyo guddoomiyahooduba halka ururka Ishfaaq oo iyaguna aad iyo aad dadaal u muujiyey iyo kartiba ay haystaan 4 dhibcood guud ahaanna waxaanu ku dhawaaqaynaa in ay maanta guushu raacday labada ururba way raacday kaalinta koowaad waxa imaka taagan ururka Ishfaaq aad iyo aad bay u mahadsantihiin